بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. أحبائي في الله، إخواني وأخواتي في العقيدة، ودراسينتي كتاب كاني عقيدة كل مسلم، درسيني ودرسي السقالات بإذن الله تبارك وتعالى. وحنو كبلا بين قضبك صدحي لباتنات بإذن الله عز وجل. لبا بقضبك صدحي لباتنات أما لباتني صدحات أيان كبلا بين عاوة درسي حصوص تمر والبابا. كتاب كان وكتاب قابا قبلها الصوع الصدين آدبا ومهد علينا يا الله تبارك وتعالى أبال وين هكسيو حفظيسا iyo imtixaankiisana Allah tabaaraka wa ta'ala ha u fududeeyo oo ha u dhib yareeyo. qodobka 23aad muallifku rahimahullahu tabaaraka wa ta'ala wuxuuna weydiiyay su'aasha ah: hal yajuuzu an-nadhru li ghayri Allah? nadarkana horay baan xoogaa aan soo sheegnay duruustii aan horay ku soo marnay. hal yajuuzu ma bannaan tahay النذر لغير الله؟ النذر إلهي غيرك إلا النذره، إلهي غيرك إلا النذره ما بنانتهي شرط للقله لا إله ذو مثلا وكتصال أهانه شيخ بلو هدا أضوحا إسيسو صدح بريبا سوميا شيخ بلو هدي أولاد إسيسو إلى آخره وشرط إناني barakadaada haddaad igu siiso haddaad doonta dheh waa unu isku midki. ilaahay kayrkii sharti ma laga xidhan karaa? su-aasha sheekhu waa midda ah, waana masale caqiido ahoo muhiim ah, masale caqiide ah oo daruuri ah weeye. hal yajuuzu annadru ligayri illaah? jawaabtu waxay noqotay laa yajuuzu annadru ila lilah. yacni ma bannaano sharcanna kuma bannaano, kitaabka qur-aanka iyo sunnada nabigana kuma bannaano sala allahu caleyh wasalama annadru ligayri illaah. ilaahay kayrkii inaad nadar iyo sharti ka xidhataay horta sharcigeennu maa diiday mana ogolo. saa daraaddeed baa maryamo binti cimraana hooyadeed, maryamo binti cimraan nabi ciise hooyadii waa maryamo binti cimraana. haddaba maryamo hooyadeed ayaa uuraysatay maryamo lafteeda. mar alla markay uuraysatay bay ilaahay bariday tabaaraka jalla wacalaa, nadar iyo shartina way xidhatay. waxay tidhi: rabbi innii nadartu laka maa fii batnii muxarara fataqabbal minii innaka anta asamiicu alcaliim. suuratu aali cimraan aayadda 35. waxay tidhi: rabbi yaa rabbi, rabbigayow, innii nadartu laka. saas bay maryamo binti cimraan hooyadeed ay tidhi: innii anigu nadartu laka, sharti baan adiga kaa xidhay. waxaa sharti iga ah oo rabbiyow nadar iga ah oon adiga kuugu nadrayaa shartiga ilaahay tabaaraka wa tacaala. maa fii batnii, calooshayda waxa ku jira iyo riximkayga ilaahay ku abuuray, muxararan in uu yahay mid xor adiga kuu ah, cabdan laka adiga addoon kuu ah, inuu noqdo ayaa nadar iyo sharti iga ah. ee fataqabbal minii, aniga ilaahayow iga aqbal nadarka iyo shartiga aan ku xidhay inay qofka uurka ku jira uu adiga xor kuu noqdo, addoon ilaahay kuu noqdo oo kuu khidmeeyo oo baytulmaqdis uu ka khidmeeyo. haddaba maryamo binti cimraan hooyadeed cid kale nadarka mayna gelin, cid kalena nadar ma ayna ku shartin. waxay sharti ka xidhatay rabbulcizati tabaaraka wa tacaala: rabbi innii nadartu laka maa fii batnii muxarara fataqabbal minii. ilaahayna waa ka aqbalay. falamaa wadacathaa qaalat rabbi innii wadactuhaa unthaa wallahu aclamu bima wadacat walaysa adakaru kalunthaa wa innii samaytuhaa maryam وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبل مني صومين. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسن
وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. آياتك عجائبك بدن بأمره إيا الدعادي إيا النتيجدي إيا النذرك أي أوفيسي والله تبارك وتعالى كبر كين دونا حتى يحيى. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك إيش بيحيى. زكريا يعني زكريا نواقي إلهي بريي كدبنا خيرك بركديسي خيرك وناقيسي يا خير كيسي إلهي تبارك وتعالى زكريا أي كهنوني أسجنا بل إنه قعمها ربي أتاكتو ربي بريو كدبنا وكيل أقبلي فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. إن يحيى له بشاري ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. أما حديثك أما دليلك أو شيخ كاني أو كان مسألة النذرك إن إلهي غيرك أن لو نذر كرين شرطنا أن لقحر كرين وحير النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. من نذر قفك الشرط إيا النذر كن نذره أن يطيع الله إنو الله كأطيع النذر كاسي أو وحن وكن نذريو هدي ويا وح شرعي وأقول يهي إلهينا لو وسي دوانا يهدو يهي تبارك وتعالى هدي إلهي وحادي سيسو صدح بريبا السومي إذا صونك ربي بالله صوما وإلهي بالله قد وذا تبارك وتعالى هذا وحا إذا قادو صدقة سألبحي إذا صدقة إلهي درتي لولبحه إطاعة الله تبارك جل وعلا. ومن نذر أن يطيع الله فليطيعه ووامحي هفلي النذر كوي يعني قفك كن نذره شيء طاعة وألا أدوين يتبارك وتعالى أما أن معسئهين وشرع أقليهي وإن فليه نعم وإن فلساه إلهي با مؤمنين تكو أمان يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. مؤمنين تواكوا أوفيه بأليل تبارك وتعالى النذر كأي قلين أي أوفيان سببتي أوفليان ويؤوفيان وامحي ويخافون يوما مالين بيكبقان كان شره مستطيرا هذي شركي سميد يعني بلاران يعني أن لقبح سنكرين وعذابك إيا قيامة صومها مالين تاس أيغو كبقيا أي نذرك أي لقالين شرطي أي لقالين رب العزة طاعضها أي فليان. من نذر أن يطيع الله فليطعه عكس هذا فيري. ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه فلا إيش يعصه قفك كن نذره إنو الله عاصينا يوسن فلين ويسأل الله عاصين قفك كن نذره مثلا يعني وحاول يا شيخ بلو هداد وحا إيا وحا صار متغنى آب وحا صار قبر قاقان حولكو قليا هفلين ويا لما أقولوا شرعينا واديدي شرعينا واديدي وحان نذر إيا الشرط إيقاء هبل أو ولالكي إنان الله هلين قرابة قويس كشرط اللي ما ديكرو ما يهفلين شيبا حرام ياسك حرمتي هفلين إذن ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. نعم رواه البخاري. سؤال شلباتني يا أفراد مؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وحنا ويديي هل يجوز الذبح لغير الله؟ هل يجوز الذبح لغير الله؟ ما بنانتهي إلهي عد آن أهين إن وحلو قاله
ilaahay cid aan ahayn in wax loo qowraco ma bannaan tahay addabxu ligayri illaah waa su-aal yaa badan wey oo qofka aan xog ogaalka ahayn wuxuu isdhihi karaa sheekhu muxuu su-aashan u keenay laakiin qofka xog ogaalka ihii wuu garan karaa su-aashani sababka ay ku timid inay jiraan dad badan oo ilaahay kayrkii wax u qala tabaaraka wa tacaala u qowraco jin baa wax loo qalaa jin baa wax loo qala oo qubuur baa wax loo qala oo shayaatiin baa wax loo qala oo sixir baa wax loo qala waa badan yihiin addabxu ligayri illaahi waa shirki waan arkayna sheekhu wuxuu ku jawaabay oo yidhi laa yajuusu maya ma bannaano liannahu min ashirki alakbar weliba ma aha min ashirki alasqar ma aha maxaa yeelay dabxigu waa cibaado qowricuna waa cibaado waa wax alla loogu dhowaado cid kale haddaad siisana waa shirkul akbar daliilka qur'aanka ana qabso ee uu sheekhu keenay oo alle uu yidhi tabaaraka wa tacaala fasalli lirabbika wanxar inaa acطaynaaka alkawhara fasalli lirabbika rabbigaa u tuko oo ciidul adxaa rabbigaa u tuko wanxar qowrac ciidul adxaa asaga u qowrac caamna ka dhigo war ilaahayna u tuko tabaaraka jalla wacalaa waxaadna u qowracdaa waxaad qowracayso lirabbika u qowrac cid kale ha u qowricin mararka qaarkood qofka waxaa shaki ishkaal ka galaay warar waxaan qowracaysee wax loogu qowracaya waa niyada waxa laga hadlayo ani markaan waxaan qowracayo hooyadii baan raba inaan sadaqo u bixiyo maalan neefkii waan soo qaadi waan seexinayaa hawaabka iyo ajirka ka imaanaya ayaan doonayaa hooyada inuu gaadho maalan sadaqada aan bixinaya dadku ay cunayaan bismi illaahi baana ku qowracaya allahu akbar soo maa bismi illaahi allahu akbar ayaana ku qowracaya laakiin qofka ismuljinni lagu qowraco la yidhaahdo jinnigan baa la siinayaa jinni baa loo qowracaya jinnigan baa la siinaya dhiiggiisuu cabbaya yaan isku khaldamin marka waa shay niyada iyo qasadka u khuduucayo wey mararka qaarkoodna lafdiguuba noqon karaaba maxaad u qowracaysaa shaygan maxaad ugu qowracaysaa idan fasalli lirabbika wanxar rabbigaa u tuko oo asagana dartii wax u qowraco lirabbika ay idbax lilaahi faqat alle keligii wax u qab oo keligii wax u qowrac oo waxa weeyaan hawaabka iyo ajirka ka imaanaya waxaanaad qowracdee la cunayana u niyo waalidkaa inuu gaadho laakiin ciddaad wax u qowracaysa waa inuu alla noqdo tabaaraka jalla wacalaa xadiidka uu sheekhu keenay fiiri nabigeenna sala allahu calayhi wa aalih wasalama wuxuu yidhi lacana allahu man dabaxa ligayri illaah walxadiidu fii saxiix muslim waa waciid cajiiba adag waay lacana allah lacnadu waa in naxariista ilaahay lagaa fogeeyo qofka naxariista rabbulciza laga fogeeyana wax saalan maaha lacana allaahu allaha lacnado oo naxariista allaha ka fogeeyo naxariistiisa ka fogeeyo man qofka dabaxa u qowraca ligayri illaah ilaahay cid aan ahayn cidda wax u qasha ilaahay ha lacnado marka rasuulka carabkiisa calayhi asalaatu wassalaam ayay habaarkan uu soo maray saa daraaddeed waxaan shaki ku jirin inuu ilaahay aqbalayo tabaaraka wa tacaalaayo qof kastoo alle kayrkii wax u qala inay lacnadaa ku dhacayso nacam man lacana allahu man dabaxa ligayri illaah lacana allaahu allaha lacnado man dabaxa ligayri illah qofka ilaahay kayrkii wax u qala oo u qowraca oo jinni iyo ibliis iyo cifriid iyo u qowraciyo sixir iyo balaayo allaha lacnado buu nabigeenu ilaahay sala allahu calayh wasalam rawaahu muslim qodobka 25 hal yajuusu atawaafu bilqubuuri hal yajuusu oo talow ma bannaan tahay altawaafu bilqubuur
qubuurta in lagu dul wareego oo lagu tawaafayo ma bannaanta qofka aan qubuurta iyo nimanka suufiyada la yidhaahdo ghullaada ah waxa ay qubuurta ku sameeyaan qofkaan aqoonin dee su-aashaan wax badan kama fahmi karo laakiin qofka arkay qubuurta waxa lagu samaynayo qubuuraha waxa lagu sameeyo qofka arkay su-aashani wuu garan karaa qaabka laysu weydiinayo waxaa laga yaabaa inaad dhahdo oo ma qof muslima baa qubuur ku wareegaya nacam qof muslim sheeganaya ayaa weliba qubuur ku wareegaya 7 jeer kal xaji kal kacbati baan u jeedaa sida kacbada oo kale inanay kacbada ilaahay baana amray inaanu ku wareegno rabbi qur'aankiisa iyo axaadiisa rasuulka sala alla alay wasalam iyo ficlu rasuuli iyo ficlu asaxaabati waasalaf ayaanu u haysanaa horay baanu nihi shaygu hadduu cibaado yahay daliil buu u baahan yahay laakiin nin wadaad dhintay oo xaalkiisaba ilaahay og yahay tabaaraka wa tacaala oo laga yaaba inuu asaguba xaalkiisu yacni qabriga lagu ciqaabayo laguba cadaabayo inaan qofka qalbigiisa waxa ku jiray maba taqaanide yaa intaasoo xoolaa intii lagu dulqalo ayaa haddanana qabrigiisii intii la tawaafo 7 jeer ayaa carradiisana la soo qaadanoo la cabi ciiddiisana maxaa la yidhahdaa wejiga la marsanayaa nacuudu billaah ma aha wax khuraafaa waa wax jira waxaan iska lahay maaha waxaan mufarbakaynaya maaha wax khusacbalaadoo iska sheegaya maaha waa xaqiiqo jirta wey waa arrin jirta qofkaan ogeynow arrin jirta wey sidaa daraaddeed waa caqiido khatar ah wey xataa qaarkood ay dhahaan sheekh hebel ziyaaradiisa qofka tagoo 7 jeer ku wareega 7 jeer ku wareega oo 7 jeer taga 7 jeerbana mid walba 7 jeer ku wareegay asagoo soo xajiyay la macnata waa cajiib waa waxyaab badan soomay arkin qolyo aaminsan mawliidka oo rasuulka loo dhiga sallallahu alayhi wasallam annagoo aaminsan inay bidca tahay sharcigana meel kaga soo aroorin ayaa la yidhi habeenkaasi ama dhalashada nabiga sallallahu alayhi wasallam waxay ka fadli badan tahay habeenka laylatul qadarka la yiraahdo quraanka lagu sheegay inna anzalnahu ee quraanka la soo dejiyay ma khuraafadu maranaysan dad baa sa aaminsan inay ka fadli badan tahay dhalashada nabiga sallallahu alayhi wasallam oo mawliidka inay ka fadli badan tahay maxay habeenka laylatul qadarka quraanka lagu sheegay inna anzalnahu fi laylatil qadri wama adraka ma laylatul qadri khayrun min 1000 shahr dad baa aaminsan soo cajiima waxyaa badan oo su'aasha la weydiinay waxa weeye warta laylatul qadarka quraan baaba ku soo arooray bal keen adigu tan quraan ku soo arooray bal hatta hadith dhaif ku soo arooray keen waxyaa badan oo cajiib badan wey bal xadiis ku soo arooray keen hadduu sahay wax la iska samaystay الحديث شروط بيلاده حديث كمركز القادنا يو شروط بوله أو لو قدر ما يو وربالواي هاي سلف كي وحكى له الريكان أبو بكر يا عمر يا عثمان يو عائشة دي حاس كي سائل النبي صلى الله عليه وسلم بل كان ما شفت وغريب كروي إذن هل يجوز الطواف بالقبور ما بناتها قبور إن لو طوافه لا يجوز الطواف إلا بالكعبة طواف لغو وريق مكان أو شرعي إنه أقل يهي أو شرعي إنه فصحي أو قرآن كسو أروري أو حديث سقناضي كسو أروري أو رسول يا صحابة في الأهان أو قدعي أو سلفنا أيضا نغسو قوريين وان كعبة هين مجرو قاعدة قبس مركة العبادة تفتقر إلى دليل هرت عبادة والبدليل بيقوبها أنت مكان أهان مركة لده أو أد مكان عبادة كو خصيصته دليل كو فصحي مكان كعبادة خصيصة ربا الزمن هذا هذا أو وقت معين يبل يمالين هذا
sharciga islaamka qur'aanka iyo sunnada labada masdar daliilka kuu fasaxay baa lagaa rabaa zamanka iyo wakhtiga aad tidhi cibaadadaa khaas bay ku tahay kayfiyada iyo qaabka iyo qadarka haddii aad dhahdo qadarkan baa la samayn karaa waa inaad sharciga idan ka haysato qadarkan kuu fasaxaya idan xagga makaanka iyo xagga zamanka iyo xagga qadarka haddii aad dhahdo shaygan waa khaas oo caam ma aha ina shareecadu asal caam baa u ah shaygan khaaska aad ka dhigtay ee aad makaan khaas ooga dhigtay ama aad zaman khaas ooga dhigtay ama shay caam aha aad qaydka aad tiri kanaa qaydaya daliilka qaydayee lugta ka xidhaya ee makaan ku qaydaya ee zaman ku qaydaya ee hay-ad iyo kayfiyad ku qaydaya haddii daliilkeedii baa lagaa rabaa wax xoog ma ahane sidaa daraaddeed laa yajuusu tawaafu ilaa bilkacba aayadda qur-aankaee sheekhu keenay fiirso suuratu alxaj ilahay wuxuu yidhi walyatawafuu ha tawaafeen bilbeyti alcatiiqi waa kacbada ha tawaafeen amar wey walyatawafuu waa amar waalamru yaqtadi alwujuub asalkuna amarku wujuubuu faa'iideeyaa ilaa laga helayo qariin iyo daliil kale oo ka leexinayo wujuubnimada waa qaacido muhiim ah walyatawafuu ha tawaafeen bilbeyti alcatiiq waxaad keentaa walyatawafuu bilqubuuri balkeen baadu bal qubuurta ha tawaafeen bal meel laga hadlayo waan qaadanaynaaye keen bal qur-aankeen oo xadiidkeen oo rasuulka iyo saxaabadiisi keen way soo ziyaarin jireen qubuurta nabigaa yidhi sal slam inii nahaytukum can ziyaarati alqubuur walaakin al'aana fazuuruuha fa inaha tudakiru alaakhira ha way soo ziyaarin jireen tayib shuruud bay leedahay qaabka baqiic buu nabigu soo ziyaarin jiray intaa ka badan may sidii uu nabigu u samayn jiray iyo saxaabadu ma nagu filaan weyday nabigu xoole ma ku qawrici jiray sal slam ma ku wareegi jiray nabigu sal slam ma dul fadhiisan jiray habeenno nabigu sal slam ma dhisi jiray nabigu sala ly salam waxaasoo dhan daliil ba u baahanta ilaah laga baqo tabaaraka wa tacaala innaa wajadnaa aabaa'anaa qabri baa kaa dambeeye jawaabta maxadihi sheekhaydii baa saa i yidhi dariiqadaydii baa saa i tidhi ruuxa kaa saari mayso addoon ilaahay abuuray baa tahay cibaadana loo abuuray lagu abuuray cibaadaduna waxay leedahay daliil kuu fasaxa inaad hesho bay cibaado ku tahay ittaqi illaha tabaaraka wa tacaala walyatawafuu bilbeyti alcatiiq nabigeena calayhi salaatu wassalaam xadiidka uu sheekhu yidhi man taafa bilbeyti sabca wa sallaa rakcatayni kaana ka citqi raqaba saxiixun rawaahu ibnu maajah man taafa bilbeyti kacbada qofka tawaafa sabcan adiguna waxaa tidhi sheekh hebel qabrigiisa 7 ha la tawaafo waan tawaafaynaa ee noo keen naska noo fasaxaya haddaadan nas kuu fasaxaya haysanin ha samaynin aakhare waad ku cadaab mudanaysaa warku waa inta man taafa bilbeyti 7 qofka kacbada 7 jeer tawaafa oo wasallaa rakcatayni 2 ragcadoodna tukada waa khalfa maqaami ibraahiime wattakhiduu wafii qira'a wattakhaduu min maqaami ibraahiima musallaa kaana ka citqi raqaba kaasi wuxuu la ajri yahay qof addoon xoreeyey oo kale ayuu la ajri yahay idan daliil waxaan haynaa noo fasaxaya altawaafu bilkacbati 7 qur'aankana muxuu yidhi walyatawafuu bilbeyti alcatiiq wafacala rasuulu llah sal ly slam 7 ashwaaq wasacyu bayna asafa walmarwata 7 marka nabigu asagaas khuduu canii manaasikakum buu lee war aniga iga qaata xajka iyo cibaada aniga iga qaata idan meesha xataa aan ka bilaabayno tawaafka waa inuu xajarul aswad noqdo bidixooma qaban kartid midig wayna u dhaqaaqdaa maqaamu ibraahim xaggiisa u dhaqaaqdaa xijru ismaaciil ilaa rugl yamaani saa waa inay noqotaa xataa marka aad sacyo bayna asafa walmarwa
ibda'uu kamaa bada'a allah ina asafa walmarwa safa laga bilaabaya. sidaasuma xajka markii la gaadhana mina loo tegayaa. shaqadii mina laga qaban lahaa baa la ogyahay, shaqadii carafo laga qaban lahaa baa la ogyahay, shaqadii musdelifo laga qaban lahaa baa la ogyahay. yacni maalinta tobnaad ee ciidda ah wixii la qaban lahaa baa la ogyahay. kala hormari dhib ma leh, laakiin waa la ogyahay. saddexda maalmood ee tashriiqana wixii la qaban lahaa waa la ogyahay. idan shay walba rasuulkaa sameeyey sala allahu calayhi waaalih wasalam. khud canii manaasikakum. darsigeenna qodobka ugu dambeeya biidni illahi tabaaraka wa tacaala waa la qodobka 26. hal tajuuzu asalaatu waalqabru amaamak? ma bannaan tahay inaad salaad tukato walxaal alqabru amaamak, qabriguna uu sutro ku yahay oo hortaada uu qabrigii yahay? dad baa intay masaajidada qubuurta ka dhex dhisaan bay haddana xaggooda u tukadaan. laa tajuuzu asalaatu ila alqabri, qabriga xaggiisa in loo tukada sharcigeennu waa diiday. qabriga halkaa hortaada yaalla inay sutro kuu noqdo sharcigeennu waa diiday, khatar wey. allah wuxuu leey tabaaraka wa tacaala fawalli wajhaka, jeedi wejigaaga nabi maxamed calayhi salatu wasalaam shatra almasjid alxaraam, ay naxwa almasjid alxaraam, masaajidka xurmada leh xaggiisa u jeedi wejigaaga, ma aha qabri. ay istaqbil kacba laga wadaa, qiblada qaabil. oo qofku hadduu ku jiro gudahana waa inuu caynta kacbada arkaa, hadduu bannaanka ka joogo sidan oo kalena waa inuu xaggeeda qaabilaa. fa aynamaa tuwalluu fa thama wajhu allah. xadiidka ugu dambeeya darsigeenna oo sheekhu keenay wuxuu yidhi nabigeenna sala allahu alay wasalama laa tajlisuu cala alqubuur, qubuurta ha ku dul fadhiisanina, walaa tusalluu ilayha, xaggeedana ha u tukanina. waalxadiidu fii saxiixi muslim. faas'alu allah jala wacalaa, ilaahay waxaan ka baryi inuu dersiga uu nagu anfaco, quluubteennana uu geliyo. inahu waliyu dalika waalqaadiru calayhi. inta aanu kaga kulmayna talaadada soo socota iyo xalaqadeennii kale waxaan idinkaga tegaya astawdicukum allah. wassalaamu calaykum waraxmat allahi wabarakaatu.